السلام عليكم. maanta waxaan idin soo gudbin doonaa cashir ku saabsan selka. ruuxantii markii laga hadlayo selka waa muhiim, barashadiisana waa muhiim. haddii aradid inaad baratid caafimaad waxaa qasab ku ah inaad taqaanid selka, sababtoo ah cashir kastoo aad qaadan doontid maxaa yiraahdaa uu ku jiri doonaa selka, kama maqno. sidaa daraadeed waxaa idinka caawin doonaa intuu course-ka noo socdo insha allahu tacaala inaan idin siino macluumaad ku saabsan selka, wuxuu ka samaysan yahay, qaabku u samaysan yahay, shaqadooda mid inaan u istaagno insha allahu tacaala, waana isla joogi doonaa insha allah. midda kale waxaan rabaa inaan idin sheego selka barashadiisu wuxuu rabaa maxaa la yiraahdaa fahan aad iyo aad u balaaran. ma ahan inaa maxaa la yiraahdaa kaliya aad akhriso wax buwaagi kaliya, ma wuxuu baahan inaa fahan, inaa isku daydo waxa inaa fahantid. qofku waxaa rabaa markuu wax baranayo inuu barto inuu waxaan fahmo, ma ahan inuu waxaan iska maxaa la yiraahdaa akhriyo ama maxaa la yiraahdaa uusan daneynin. ma aha qofka haddaa rabti inaa si dhab wax u baratid waxaan fursad sii, waqti sii, maxaa la yiraahdaa inaa fahantid, isku day waxaan barnoys. qofaa wuxuu ku dhahaa caafimaadaan barnooya, ani mana yaqaano wuxuu yahay maanta sel ma yaqaano, laakiin wuxuu ku dhahaa aniga caafimaadaan barnooya, waxaa rabaa inaad daktar noqdo. marka waxaasoo kale waa shame ama waxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa ceeb. sidaa daraadeed marka waxaa qasab kuu noqon doonto insha allahu tacaala haddii aad tahay qof rabo inuu barto caafimaad ama baranayo inaad selka taqaanid insha allahu tacaala. haddaba maanta waxaan idin soo gudbi doonaa course ku saabsan selka, aasaaskiisa ayaan soo gudbi doonaa. intaanan u gudbin kahor hal mar waxaan rabaa inaan example idinka siiyo selka maxaa la yiraahdaa iyo wuxuu yahay. ruuxantii hadda markaa maxaa la yiraahdaa aad joogtid maxaa la yiraahdaa banaanka oo kale markaa taagantahay waxaa arkaysaa guryo badan oo agaaraha yaalo oo ka dhisan, macnaha guryaha ka dhisan agaarahaaga markaa fiirisid maxaa la yirahdaa waxyaabay ka dhisan yihiin oo kale. had tusaale ahaan oo kale maxaa la yirahdaa waxaa aragtay guri mar dhow la dhisay oo aad u qurux badan. guriga markaa fiirisid waxyaaba uu ka samaysan yahay waa maxaa la yirahdaa waa dhagax ama bulkeeti. sidaa daraadeed dhagax oo la isku dardaray ama bulkeeti la isku dardaray ayaa wuxuu sameeyay guri aad u qurux badan uu sameeyay. Soomaa jirkeenan waa sidaas oo kale. sel waa waxa ugu yar ee aniga aan ka samaysanahay waa selkii isku dardarmo oo isku soo batay ayaa waxaan noqonay qof bil aadan dhameystiran aan ka soo baxnay. marka qofka maanta maxaa la yiraahdaa arkaysid ama aniga maanta kula hadlaayo waxaa ka samaysanahay selkaas oo isku batay ayaa maanta waxaan noqday qof bil aadan ah. adiga maanta waxaa noqotay oo fiirsanaya videogan qof bil aadan oo dhameystiran. waxaa ka imaatay waa unugaas yar oo soo dardarsan isku soo darsan ayaa ka imaatay. tusaale waxaan usoo qaaday hadda idin sheegay guri wuxuu ka samaysan yahay waa dhagax isku soo badbatay ayaa wuxuu sameeyay guri dhan ayuu sameeyay. saa daraadeed anaga macnihiis ma inaan dhagax ka imaanay, laakiin tusaale ayaan usoo qaadanaya. saa daraadeed waa inaad fahantaa maxaa la yirahdaa maskaxiyan waa maxay selka, maxaa la yirahdaa iyo waxyaaba anaga aan ka samaysana. haddaba waxaa bilaabeynaa marka introduction. maanta cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa insha allah introduction. haddaba waa maxay sel? marka meeshan waxaa noogu qoran introduction-kii. selka marka laga hadlayo waa kana all the living things are composed of cell. wax kastoo nool, shay kastoo nool oo naf ku jirto oo maxaa la yiraahdaa naf leh ama sel ka samaysan wuxuu ka samaysan yahay sel. wax kastoo nool wuxuu ka samaysan yahay sel ayuu ka samaysan yahay. wax kasta oo noolba wixii yarma ahaadaan ama plants ahaadaan ama animals ahaadaan oo noolba haddaa aragtid waxay ka samaysan yihiin waa sel. sidaa daraadeed marka maxaa lagu qeexaa marka waa maxay sel? divine aa lagu dhahay. selka waxaa lagu qeexaa structure and functional unit of living body. waa maxaa la yiraahdaa structure maxaa waay qaab dhismeedka iyo shaqada oo loogu baahan yahay living body-ga maxaa la yiraahdaa waa selka. waa marka selka muxuu qabtaa? waxaa lagu qeexaa maxaa waay waa structure-ka iyo shaqada oo living body-ga marka oo muhiim ah. waa marka ma fahanteen? hadda marka waxaa fiiri doonaa waa maxay waxyaabaha lagu garto ama characteristics uu leeyahay ama sifaadka lagu garto selka waa maxay. marka waxaan inay sel yihiin maxaa ku aqoonsan kartaa? waxaa ku aqoonsan kartaa lagu dhahay marka each cell in the body, sel kasta oo jirka ku jiro waxay u baahan yihiin needs nutrition and oxygen. waxay u baahan yihiin nafaqo iyo oxygen ay u baahan yihiin. labo waxay u baahan yihiin ama produce waxay soo saartaan its own energy necessary for its growth, repair and other activities. waxay soo saartaan energy loogu maarmaan u yahay inuu qofka koriyo sameeyo. hadda tusaale ahaan oo kale gaariga wuxuu u baahan yahay petrol ayuu u baahan yahay ama shidaal ayuu u baahan yahay. hadduu waayo petrol ama shidaal gaarigaas ma soconaa ma soconayo, meelaa la dhigaa. soo ma marka adiga waa energy-ga marka qofka bini'aadanka energy u baahan yahay marka lagu dhahayo waxaa waaye energy. qofka markuu cunto cuno cuntada waxaa loo bedeli doonaa energy. energy waa sida adiga maxaa la yiraahdaa
gaari hadii shidaal uu sheego muxuu sameynaa uu ka caasoma gaariga uu shaqeynaa jirkaagana saas waa markuu cunto hel oo kaara maxalla oo hel energy jirka dhan waa shaqeynaa oo maxalla shaqadooda ay qabsanayaan sidaa daraaddeed anaga waa naga marmaan waxaa u nahay energy la-aan qof joogi kara malaha sidaa daraaddeed markuu jirka energy markuu helo muxuu sameynaa growth koritaan ayuu sameynaa haddii waxyaaba ay jiraan repair ay lagu sameyn doonaa haddii iyo shaqooyin kale ay jirka qabsanaa marka u baahan yahay sidoo kale maxaa la yidhahdaa astaamihiis ka mid ah selka waxaa lagu gartaa eliminate carbon dioxide and anabolism inuu qashin iska saaro eliminate maxaa inuu saaro carbon dioxide waxyaaba carbon dioxide waa naqanaa soo ma oxygen waa qadana carbon dioxide waa soo tufnaa carbon dioxide kas soo tufin waa wasakh jirkeena kasoo baxda marka haddii lagu dhaho carbon dioxide maxaa la yidhaha wasakh maaha kaas baan ku sheegay sidaa daraaddeed carbon dioxide waa wasakh sidaa daraaddeed marka waa inaa iska soo banaanka iska keenaa iyo sidoo kale other metabolic iyo waxyaabo kale oo wasakh sida hadda kaadada oo kale qof marka kasoo baxdo waa wasakh maxaa la saxarada waa wasakh sidaa daraaddeed marka waa muhiim inaan banranaa marka sidoo kale waxaa la lambarka shanaad shaws wuxuu muujiyaa immediate response to enter of invaders wuxuu muujiyaa maxaa la yidhahdaa jawaab celin degdeg ah tusaale ahaan oo kale jirka waxaa soo weeraray bacteria ama sheeyaa soo weeraray isla marka wuxuu sameynaa protection iska difaaca waxaa jirka soo weerar iska difaaca sababtoo waxaa leenahay immune ama difaaca leenahay difaacaas ayaa celinaya marka waxaan shaws wuxuu muujin doonaa immediate response jawaab celin degdeg ah uu muujin doonaa invaders waxyaabaha jirka soo weeraray sida bacteria toxinka iyo waxyaabaha jirka soo weeraray hadda marka waxaan general characteristics oo lagu garto selka waxa waaye waa kow wuxuu u baahan yahay nutrition iyo oxygen hadduu waayo selka wuu dhimanaa waxaas hadduu energy waayana muxuu sameynaa waa u dhamaatay sidoo kale carbon dioxide hadduu soo dhici waayo maxay imaanaya inuu qofka ku imaado maxaa la xaaladooyin halis ah inay ku imaadaan sidaa daraaddeed selka waxaa muhiim inuu iska soo bixiyo carbon dioxide sidoo kale wuxuu muujinaya immediate response jawaab celin degdeg ah marka selka wax soo weeraraan uu iska jawaab celiyaa hadda waxaa kasoo baxay sel waa maxay sel iyo waa maxay sifooyinka uu leeyahay selka hadda waxaa gali doonaa marka waa maxay tissue intaas aan godan tissue macnihiis waxaa waaye haddaa example idin sii waxaa waaye maxaa la yidhahdaa aniga haddaa maxaa idin soo dhahay dhagax laisku kor saaray wuxuu sameeyey guri dhammaano xoogaa yar haddaan dhagax laisku kor saar kaban 20 xaba ama 30 xaba oo dhagaxa iskor saarnay 30 xaba dhagax oo kale marka iskor saarnay maxaa la yidhahdaa maxaa meesha ka dhalnay kama dhalnay maxaa la yidhahdaa guri dhan kama dhalnay laakiin waxa ka dhalnay xoogaa yar inuu macnaa darbiga uu xoogaa maxaa la yidhahdaa oo iskor koray oo qol ama wax ayaa ka dhalnay soma ama qol ah ka subsamayo sidaa daraaddeed marka tissue la sheegay waxa waaye cell oo isku tagtagay leeyahay bis waa fiiriya waa group of cells having similar function waa cell waa group oo cellki isku tagtagay 10 xaba 20 xaba 30 xaba cell isku tagay having similar function waxay sameeyaan tissue ay sameeyaan marka 20 xaba 30 xaba 40 isku tagay oo cell waxay sameeyaan tissue waxay qabanayaan marka ayaga similar function shaqooyin isku mid ay qabanayaan marka hadda fahanteen marka cell tissue waxa waa cell isku tagtagay ay wuxuu sameeyaan tissue sidaa daraaddeed marka waxaa jira man tissues oo jirkeena ku jira marka afar tissue waa ugu muhiimsan marka all tissues are classified into four major types which are called primary tissues afar ugu muhiimsan afarta kan kood waa muscle tissue waa very important waxaa laga helaa skeletal muscleska smooth muscles cardiac muscleska waxaa maxaa la yidhahdaa waxay sameeyaan badanaa contraction ayay sameeyaan sidoo kale skeletal muscles muqaha laga helaa smooth muscleska waxaa laga helaa internal organska ayaa laga helaa sidoo kale cardiac muscleskan cardiac macnihiis waa maxaa waa wadno sidaa daraaddeed wadnaha ayaa laga helaa إن شاء الله تعالى هل ورستاي دونا إن شاء الله nervous tissue صار ولا غير أصلا neurons كوكل محل هذا وتيشو وامر epithelial tissue وكله أجرو epithelial tissue محل هو very important أيضا وبردنا إن شاء الله تعالى أيجا وحلوسي خبابة كو قاب أو squamous وكله أو flat أو سمن كولي هذا columnar oo xogaa dheer oo kale oo badan laga helay in caloosha ka stomach ko kale laga helaa squamous kan waxa laga helaa tusaale ahaan oo kale maxaa la yiraahdaa esophagus ka imenas laga helaa sidoo kale cuboidal epithelium cells ay jira ayagana cuboid la yiraahdo connective tissue waa jira ayagana connective tissue macnihiisu waxa waa connect jirka isku xiraa marka waa unugu jirka isku xiraa marka maxaa kamid ah connective tissue barbaro kale cartilage ko kale kamid ah arjoodo oo ayada jirka isku xirto bone ko kale kamid ah lafa iyo bloodka waa connective tissue ogaada sababtoo jirka isku xiraa nutrient oo geeya waxyaabo badan qabta haddana aan fiirin marka waa maxay organ hadda waxa soo fiirinay tissue waxa dhan waa group oo cells ku tagtago waa organ maxaa organ wax weyn ma asin waa structure that is formed by two or more primitives of tissue waa asni tissue isku tagtago waa marka organ maxaa waa tissue oo isku tagtago haday cell isku tagtago tissue tissue isku tagtago hadana muxuu sameeyna organ oo sameeyna macna okay organ maxaa marka waa structure waa qaab dhismeed that is caso formed ee sameeyeen two or more primitives of tissue hal ama labo primary tissues oo isku tagtagay ayaa waxay sameynayaan organ ay sameynayaan hadda example hada ka bixin organism maxaa kamid ah waxaa kamid ah brain ko organ waa xubin yaa suubi tissue yaa suubi sidoo kale heartig waa organ waa
lungs waa organ, stomach waa organ caloosha, lungs maxaa sanbada, intestines min dhiraha waa organ, liverka beerka waa organ, gallbladderka xameetada waa organ, asina pancreaska maxaa la yiraahdaa kidneyga, endocrine glands kulli waa organs waa marka yaa sameey kulli tissue sameeyaan tissue asalkiisa to kiima cell ku imaan hada misalena organ hadii loo organ iyo tissue maxay kala duwan hadii loo organ waa tissue isku tagtaga organ sameeyana laakiin tissue-ga cell isku tagtaga sameeyana hada system oo maana system macnihiisu maxaa weyn system. The organ system is defined group of organs that work together to carry out a specific function of the body. Haddana organkii isku tagtagaya wuxuu sameyn doonaa oo organ system ayuu sameyn doonaa ama system ayuu sameyn doonaa. Ma fahanteen? Organkii oo xubinta ah liverkii iyo maxaa la yiraahdaa kidneyga iyo lungii isku tagtagaya waxay sameyn doonaan maxaa la yiraahdaa organism ay sameyn doonaan ama system ay sameyn doonaan. Su'aal aan oo kale hadda soo qeyrano system ay sameyn doonaan. Had each system performs a specific function. System kasta waxay qabataa shaqo u gooni ah. Tusaale ahaan digestive system ko kale. Digestive system waa system yasmi organism oo isku tagtaga ay sameeyay. Saadradid digestive system maxay qabataa iyada consent waxay ka heshaa ama waxay qabataa digestion of food particles. Inay burburiso food particles cuntooyinka burburisaa. Inta kasoo bilaabma digestive-ka from mouth-ka to anus-ka ayaa waxa la yiraahdaa waa digestive particle ama digestive system ay yiraahdaan. sidoo kale waxaa jira excretory system waa ayagana system inta ka imaadeen waxaa sameeyay maxaa la yiraahdaa organs isku tagtaga ayaa sameeyay ayagana eliminate waxay banaanka ku saaraan unwanted substance waxyaabo wasaqda ay u saaraan. sidoo kale cardiovascular ayaa jira system oo asina system gooni ah oo ka mas'uul ah transport substance between organs inuu supply gareeyo ama organiska inuu transport ku sameeyo. Okay, respiratory system ayaa jira asina kaas oxygen-ka jirka soo geliyo carbon dioxide-kana banaanka ku saar marka asina. Okay, sidoo kale waxaa jira reproductive system-ka oo taranka sameeyo asina maxaa la yiraahdaa endocrine system ayaa jira asina oo sameeyo oo badanaa qabto shaqooyinkiisa kamid yahay inuu sameeyo growth of the body jirka inuu qofka koro. endocrine system-ka ayaa sameeyaan ayaa ka mas'uul ah. sidoo kale regulation inay joogteeyaan maintains normal life xadiga nolosha caadiga inay joogteeyaan qofka. sidoo kale musculoskeletal system ayaa jiro ayagana oo ka mas'uul ah in stability iyo movement of the body stability jirka inuu lahaado iyo qofka inuu sameeyo movement inuu dhaqdhaqaaq sameeyo. musculoskeletal inta ka yimaadeen organ isku tagtaga ayaa sameeyay marka. nervous system-ka asina oo control locomotion other activities including intellectual functions xag maskaxiin ahaan qofka waxa uu controlo maxaa la yiraahdaa waa maxaa la yiraahdaa nervous tissue ama nervous system. hadda waxa soo baran marka maxaa la yiraahdaa waxyaabo ku saabsan cell-ka tissue-ga organ iyo system. hadda waxa fiirinayna marka waa maxay qaab dhismeedka uu ka samaysan yahay cell structure of cell-ka muxuu ka samaysan yahay marka. hadda waxa toos u gal doonaa cell-ka macnihiisu waxa waaye mid ka soo orgaan waa hor istaagi doonaa waxa hor istaagi doonaa cell tissue saas hor istaagi doonaa insha Allah. hadda marka aan fiirin marka waa maxay cell-ka muxuu ka samaysan yahay ama qaab dhismeedka cell-ka aan fiirin marka. cell-ka qaab dhismeedkiisa marka fiirin saddex ugu miisan marka waxa ugu miisan waxa waaye cell membrane, cytoplasma iyo nucleus. saddexda hadda baratid waxa waaye banaanka taala insha Allah taala waxa waaye cell-ka wax kugu dhimo malaha. cell membrane waxa waaye cell membrane-ka waa meesha laga controlo checkpoint waa wax cell-ka markay rabaan inay soo galaan waa meesha laga control. tusaale ahaan oo kale aliborka oo kale waxaa joogo maxaa la ciidamada joogo qof banaanka markuu ka imaado baasboor la-aan wadanka markuu rabo inuu soo galo mar waa la qabanaa waxaa lahay baasboorka waxa keen hadduusan baasboor weyn oo tuug ayo wadanka beeban kusoo gal rabin waa celinaa isla marka baxaa la awraa cadeen meestida baasboor wax meest bax naga laa wadankiisa loo celinaa soo cell membrane-ka jirka saas oo kale waa marka cell-ka saas oo kale u yahay waxa waa control waay checkpoint waay cell-ku wixii galaa wixii ka baxayo control ah. cytoplasma waa organeliski waa degmooyinkii oo kale waa marka organeliski meesha dhex yaala waa marka waxa cytoplasma waa meel oo biyo kale waa waxa dhex yaala maxaa la waxyaabo la yiraahdo organics ama xubnooyin yar wax la baran doona insha Allah taala. nucleus-kan waa buuda meesha qofka loo bini'aadamka loo control waa meesha anaga maxaa la yiraahdaa DNA-da ku jirto waa maxay waa meelihii protein-ka meesha lagu sameeyo waa meesha ugu muhiimsan maxaa la yiraahdaa cell-ka markii laga hadlayo insha Allah taala wuxuu yahay cell membrane-ka, cytoplasma iyo nucleus-ka hal u baran doona insha Allah taala. wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.